السلام عليكم. magaciisa rasmiga waa Vladimir Putin wuxuu in ka badan 22 sano horjooga ka yahay dalka ugu baaxadda weyn caalamka. Sidoo kale waa mid ka mid ah saraakiishii ugu cadcada sirdoonka Sofiyeetka ee KGB. Putin waa mid aaminsan caqliyadii aabayaashii aasaasay Sofiyeetka sida Lenin iyo Stalin ee ku aadanaa ballaarinta dadweynaha Ruushka. wuxuuna 22 sano ee uu hogaaminayay dalweynaha Ruushka u qabsaday qaybo ka mid ah Georgia, guud ahaan Chechnya, Crimea iyo duulaankii ugu dambeeyay ee dalka Ukraine. Haddaba waa kuma hogaamiyahan maxayse muhiim ugu tahay ballaarinta Ruushka? Master Putin wuxuu ku dhashay kuna barbaaray Leningrad oo haatan huwan magaca St. Petersburg. wuxuu ka qalin jebiyay jaamacadda gobolka Leningrad ee qaybta sharciga sanadkii 1975. ugu dambeyntiina wuxuu ku biiray sirdoonkii Sofiyeetka ee KGB. wuxuuna 16 sano oo noloshiisa ka mid ah ku qaatay sirdoonkii Sofiyeetka ee KGB. sanadkii 1980 Putin waxaa loo diray xarunta saadaasha hawada ee Dresden oo dhacda bariga Jarmalka oo waqtigaa taabacsaneyd Sofiyeetka. dhammaadkii 80 waxaa bariga Yurub ka bilowday mudaharaadyo looga soo horjeeday Sofiyeetka. ugu dambeyntiina 1989 waxaa dhacay xadkii ugu weynaa ee dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyay galbeedka iyo Sofiyeetka. And then in November 1989, the biggest symbol of the Cold War divide between East and West, the Berlin Wall, came down. horaantii sagaashamaadka ayuu ka tegay shaqadiisii KGB. bishii December 1991 waxaa hawada ka baxay midowgii Sofiyeetka, waxaana halkaas ka soo baxay 15 dowladood oo madax bannaan oo ay ku jirto Russia. By December 1991, the Soviet Union no longer existed. In its place were 15 independent countries, including Russia, led by President Boris Yeltsin. kadib shaqadiisii Putin ee KGB ee Dresden, Master Putin wuxuu shaqo ka helay maayarkii Leningrad ee Anatoly Sobchak. dhowr sano kadib wuxuu noqday maayar ku-xigeenka magaalada Leningrad. kadibna doorashadii xigtay ayaa waxaa ku guuldaraystay Master Anatoly Sobchak. Putin shaqadiisii halkaas ayuu ku waayay. Putin wuxuu aaday Moscow si uu qayb uga noqdo xukuumaddii madaxweynihii xilliga ee Ruushka Boris Yeltsin. kadib wuxuu noqday madaxa sirdoonkii Ruushka ee FSB ee dhaxlay sirdoonkii hore ee Sofiyeetka ee KGB. kadib Boris Yeltsin ayaa u magacaabay ra'iisul wasaaraha Ruushka. kadib magacaabistiisa 300 oo qof ayaa gudaha Ruushka lagu dilay oo ay sababeen qaraxyo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Ruushka. kadibna Putin wuxuu weeraray Chechnya isagoo ku eedeeyay inay ka dambeeyeen waxa ka dhacay Ruushka, waxaana ku dhuntay duulaankiisii 8,000 oo muslimiin Chechnyan ah. And Russia responded by invading Chechnya. waxayna noqotay sidatan caasimadii Chechnya ee Grozny. horaantii 1999 Master Boris Yeltsin ayaa xanuunsaday, wuxuuna ka dhaadhacay madaxtinimada Ruushka, wuxuuna u magacaabay Putin madaxweynaha rasmiga ee dalweynaha Ruushka. On New Year's Eve 1999, Yeltsin stepped down and named Putin acting president. sanadii ugu horeeyay dowladdiisa Putin wuxuu sare u qaaday dhaqaalihii Ruushka, wuxuuna koray cadad 7% si ka duwan sida uu ahaa kadib burburkii Sofiyeetka. sidaan horey u xusnay, Putin waa mid aaminsan caqliyadda Ruushka weyn, wuxuuna horaantii xukunkiisa qabsaday Chechnya. kadibna 2008 ayuu gobollo taabacsan Georgia qabsaday. Ukraine 2014 ayuu ka qabsaday jasiirad-lamoodka Crimea oo ay degaan muslimiin Tatar ah. haatanna mar labaad wuxuu ku howlan yahay qabsashada guud ahaan Ukraine. Putin found ways to reassert Russia's power, and we saw that in the Kremlin's decisions to invade former Soviet territories, like Georgia in 2008, Ukraine in 2014 when Russia annexed the Crimean Peninsula, and in Ukraine again this year. waqtiyadii u dhaxaysay Sofiyeetka iyo Putin, Ruushka wax saameyn ah kuma lahayn saaxadda caalamka, waxaana hogaamiye ka ahaa Boris Yeltsin oo mar walba khamriga cabbi jiray xitaa marka uu taagan yahay stage-ka. laakiin Putin waa mid ka duwan Boris Yeltsin, wuxuuna saameyn ku leeyahay waxa ka socda daafaha caalamka. haba u darnaatay waxa uu ka wada Suuriya isaga iyo xukuumadda Al-Asad.